محمد عبد واري مدحوينها مامل كيرشبيله ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ayaa waxa uu ka hadlay isku dhafka lagu sameeyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah isla markaasina loo dhan yahay Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay inuusan ogolaan doonin in ciidan qabiil ay ka howlgalaan guud ahaan Soomaaliya waxa uu tilmaamay in si loo gaaro horumar loo baahan yahay in ciidamada isku dhaf lagu sameeyo ugu dambeyntii waxaan aad walwal uga muujinay wasaaradda noqotaya ama deeq bixiyaasha noqotaya in loo baahan yahay isku shaandhaynta iyo qabiilka saaridda ciidamada qalabka sida annagu waxaan u baahannahay ciidamo isku dhafan qaran ah muwaadiniina aaminsan yididiilaha iyo geedi socodka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan annaga waxba noo mataro ciidan qabiila mana doonayno laakiin duruuftu meeshay hadda taal inaan horay uga soconno oo la isku dhafo ciidamada si ciidamadu ay u noqdaan ciidamadii qalabka siday oo la yaqiinay oo xidigta calanka sharaf iyo maamuus ku xiri jiray dhanka kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada ayaa sheegay in ay la kaashan doonaan hay'adaha caalamiga ah si loo helo ciidamo isku dhaf ah ugu dambeyntii waxa ayaguna aad runtii muxuu ahaa sheeg si fiican niyad fiican noogu muujiyay deeq bixiyaasha kale oo ay kamid yihiin EU ama reer Yurub Jarmalka iyo Sweden Jarmalku waxay aad ay ogsoontiin taariikh ahaan waxay aad u yaqaaniin oo ay jeclaa jireen inay wax la qabtaan Cabdi Ahmed Maclow Cabdi Zaki Bulsha TV Jawar